مثلا رميك سمالنا شو عشان ما درت بدهان سمالنا وحكى حتى الرجال وارد قاعد وحسن والرباط شراء شيء يعني إن وارد سمالنا أنت غير قالوا شو تبغى قاعد الغيب وركها وحكى شراء ولبا شغالين قيد كيجي ما ملي يصير وبينه وقولس الحاجة شغال وركاس horta warbaahinta ilaa shalay ilaa daraato ka hadlaysay website-yada waxa weeye website-ka ka hadlayay horta inta ka hadlaya waa shaqaalaha iyaga waa shaqaal waana tanooba haysa xayawaanka iyaga tirana waa lagu hayaa de la iskama hayo uun meel ay ka dhoofinaysa iyadii baaba xanaanaynaysa shaqaalaha iyagu waa shaqaalo fara badan waa shaqaale meel kasta noo jooga waa shaqaalo train garaysan waa shaqaale lagu kalsoon yahay oo wararku tirkuteena wararkani horta ilaahay mahadi weeyaan sanadkan aad baa loogu soo jeestay dawladda Soomaaliland ugu soo jeesatay duurjoogteena dawladda budgetka lacag bay ugu dartay oo runtii madaxweynuhu ugu daray isaguna diyaar buu leeyahay maanta hadii maanta la yiraahdo inta bixi diyaar buu leeyahay inuu bixiyo waxa la leeyahay ku baxaya diyaar buu madaxweynuhu u yahay waxa inta noo raaca militariga iyo booliiska iyo maxkamadaha inta way nala shaqeeyaan maanta meel lagu soo sheego haddii xeebta tahay militarigaas ka soo qabta lixdii u dambeeyay maalintii lagu xukumay saddex sanadood lagu xukumayna iibsan kareen xadhiga raggii iibinayay ee doonida u taagnay militariga ay Soomaaliland ciidankeena baday haayeen oo ku amaanan yihiin booliisku meesha allaale meesha noo raaca halkan noo raaca wax nagala qabta 5 minutes bayna raacaan saqad xaadaytay wayna raacaan meelahan station booliisyada meelahan aynu maartay wixii station oo dhan markaanu keeno aan soo xidhno qofka way noo soo xidhaan hadii dhuxul lagu soo xidho hadii xari wax allaale wixii lagu soo xidho way noo hayaan maxkamadda ay nala geeyaan xaakinaduna way nala xukumaan way noo xukumaan maalin kasta maxkamadaha dalka Soomaaliland meel ay tahayba wasaaradda deegaanku cidun bay maxkamad iskula jiraan garsoorayaashuna si fiican bay noo shaqeeyaan waxa inta dheer taliyaha booliiska taliyaha militariga iyo aadan xaaji cali chief of justice ama gudoomiyaha cadaaladdu si fiican bay noo shaqeeyaan maxkamadaha si wacan buu noo shaqeeyaa xukunka lagama daayo kii bac lagu soo qabtay kii digaag lagu soo qabtay kii wax lagu soo qabtay intaba la keena waa aragteen 24 saacadood aanu hadlayna deegaankuna ma dhib yaradee wax walba Soomaaliland khayraadkeeda waa loo wada cadow boqolaal ba umada cadow ah kuwa iyagu ka manaafacatinaya cadow ah marka waxaanu siinaa wacyigelin fara badan waayo khayraadku waa la isugu imanaya laakiin markay duurjoog noqoto cidna uguma naxariisano runtii cidna uguma naxariisano wixii scientifically marka uu xeer ku qoro waanu u sii deynaa laakiin wixii kale scientific maradiimka la eegayo qorato hadii imka mas la eegayo hadii imka diin la eegayo hadii wax la eegayo kaasoo kala de waa research laakiin waxaan ahayn oo halka ka baxaya waa habeen xalitigay weeyaan si wacan imka waa nolol shaqeeyaa shaqaalaha iyaguna waan ku kalsoonaa habeen iyo maalin heegan bay weeyeen waana wax imka aanu laban laabno 3 sanadood ugu dambeeyay xoog aanu saar inaan maanta duurjoogteena ay si wanaagsan dalkeena loogu ilaaliyo inta waxa noo dheer jiitaha arimaadka waa runo maalin walba habeen walba iyo maalin walba la ilaalinayo waa laga ganacsadaa ganacsi halkaas u maraya halkaas dooni laga saaraya manbu maraya khaliijku jooga intaan imika ognahay anagu ee tirsan 500 way ka badan yihiin baxay 5 maya de inta nool inta baxay dhimatay ma sheegayo 400 halka maray oo lagu oranay halka soo maray intii dhimatay badaha ku dhimatay ma sheegin laakiin inta maanta khaliijku haystaan 500 kama yar halkay ka keeneen ma Soomaaliland ma ka baxaan ama ka baxaan Djibouti kama baxaan inta badan ama Eritrea kama baxaan oo aad bay wilaashadaan inta ka baxaan waxyaabaha Soomaalida ama hata Puntland ama hata takasii shaysa ee Soomaaliya xeebaha Soomaalida ay leedahay dalalka Soomaalida ka baxaan annagu laakiin Soomaaliland waanu xakamayno waana ka shaqeynayna maanta kan ku soo qabanana jeel bu ku tagay saacada ku in duurjoogtu wadankeena imika aad bay ugu soo farbadanayaan in xukuumad ahaan maadaama ay mas'uulka ugu sareeyay wasaaradda deegaanka qorshe nooceeya ayay idinku yaalaa xanaaninta duurjoogta
horta waxa ugu wanaagsan wax weeyaan dadku inay fahmaan inay leeyihiin waxaan inuu khayraad yahay waxaynu nahay dad xoolo dhaqata ah marka aad imka ku tiraada wacaha dilin nin ay ka cuntay xooli ka cuntay aadna ku qabsato dawaca dish deeso ma hayna isla fahamtaan inuu xoolihiisa si fiican dawacada uga ilaashado markaad ku soo xadgado waraaba dishay waraabu aanu xoolihiga cunayay ku leeyahay markaad ku tiraahdo waxaad soo qabatay waxaad keentay jiitaad keentay ama harimcad baad soo qabatay neef iga diray ku leeyahay laba dhalo waraaba bal kuwa sidee ka waran maxaad u sidaan hooyadii baa naga cuntay bay yiraahdeen xoolo naga cuntay anaguna iyaga waan soo qaadnay waxay doonaan baa ku hadlaan dadkii training baa la siiyaa training ayaa la siiyaa waxa trainingkaas ka mid ah wacyigelin meel walba aanu ka hadlayno chief-iga baanu ka hadlaynaa annagii baa hadlaynaa waxa weyn maalin walba maxkamadii baad arkaysaa wuxuu kumaya marka eedo imika waa loo soo jeestay waana waxa xoolaheena aan la mid yihiin ilaahay baa ku abuuray ilaahay bayna siiyay waqanimad aynu leenahay aynu ilaashano weeye qof walba halka joogta ka ilaali laakiin hadduu u dhinto gees goodir baa la doonay oo toori baa laga sameynaya gees goodir demiyay suurta galaysaa gees goodir day u dhiman goodirkii maba haysid baa aduu maalin maanta disheed bari disheed iyo waxa laga sameynaya muqmad oo aadar muqmad baanu ka sameysanaynaa aadar ma joogto gabayso haddaad xusha shida neefkiina disheed tiraado waxaan ka sameysanayaa muqmad miyaa laga yeelay waa lagu daba keenaya adoo geedkii gubay baad neefkiina leedahay waxaan ka sameynaya muqmad ma shaqeynaysa taasina waad ku tahay sidaad beerta ula hadashay horta deegaanka ama dhulka Soomaaliland waa dhul ballaaran xayawaanka ku noolina waa kala duwan yahay sidaad sheegtay xamaaratay iyo jiitay iyo nooc walba isugu jira miyaanay qurux badnaatay inta beer xayawaan la sameeyo dhammaan xayawaanka Soomaaliland ee dhibta loo geysanayo sheegayso in lagu ururiyo badbaadiyo shacabkii iyo xayawaankii oo eedo miyaynu qaadi karaynaa ma mulacbaynu qaadi karaynaa ma waxaynu qaadi karaynaa caasha bari ma meel baynu ku xaran ilaah baaba qaniimadiina siiyay halkaad aragtay ilaa halkaad aragtay xoolaheenu joogaan de xoolahan dabada joogada iyaga ka badan xoolahan aynu raacayno xoolahan kale ilaahina siiyaba eeda ka badan kun masbaa kala wada jaada oo mid walba meel kaga hoosta kaga jira oo haddaad disho caalamku koodhaya masbaa dish adigana aqalkaagii waad ka ilaalinaysa marka eedda qaniimadaha ilaahayna siiyay cidnimo ma siin laakiin waynu ilaashanayna waynu meel wax la ilaaw meel in qaada ma jirto waa qaran dhan iyaguna inaynu meeshii joogaan iyo regionkay joogaan iyo degmaday joogaan iyo tuuladay joogaanba ku ilaalino aynu u baahana oo la saaxiibo meelaha qaarkood baad arkaysaa iyagoo soo doontay biyo la eriyaayo oo la isleeyahay waraabiyo oo la eriyaayo ha eriina doofaarka aad arkaysaan haddaad erido haraad ku erido ilaahay baa kugu ciqaabay waraabiya meeshii joogaan biyo u soo doontaan waqtiyada adag siiya biyaha oo ugu shuba oo ceelasha meel halka haddaad u dhigto maanta oo dhan bay ka cabayaan habeenkii bay imanayaan ka cabayaan aynu ilaashano حقي دوشة بالحنة وعشتا نمان كعصتا بدنا كيما تو ياس ملا بريء سوي ساري أقل منها ربع وحشة كويس دوام طبعا نقول دوام اللي أنا كسرت الوقت أنا تعسي أنا قد مبيسي ما حبيت أقطع بدنا ولا شيء سهل عندي والله دتك أنت بنتنا وما يدلني أنت بدن سومالند ولا شيء حابستون أدارك سوى سومالندرس بابورتي لي بنلاندرس والله ريال بنلاند وأنك صادر أنا حاجة شوقة inamadayna way ku shidaya nin Puntland oo inta ka yimaado ku shidaya deeda ma jirto nin walba deegaanka la shidayo way inamadoodi raga shidaya talabaadna waa laga qaado waa aragteen ma waa laga la digaa waanu kala dignaa waa la khasiraa waa la hayaa waxa weeyaan kii 3 jeer lagu qabtana dawladda Soomaaliland baa la wareegaysa wixii 3 jeer lagu qabto halkaas uu kaga tagayaa ilaa mar loo daayo laba la daayo mar saddexaad deeda ma shaqeynayso يا هذا ما تسنتي